gabar yar ayaa tiri, nin weyn ka waran nolol. Nin weyn wuxuu yidhi, nolosha way ka qaalisan tahay waxa adduunka dul saaran oo dhan, wayna caqabado badan tahay. Neefteeda naxariista badan ayaa si tartiib ah u dhaqaajisa wadnayaal badan. Sirteeduna waa sida waddo u kala qaybsantay labo, mid fogaan araggeeda ay ka muuqdaan raadadka nolosha iyo mid cidlo badan. Ha sugin berri, samee kulli maanta. Haddii beri imaan weydo, kama shalayn doontid maalin. Ha ka fiirinin noloshaada qof kaletiisa, sababtoo ah waxa uu haysto marna ma noqon doonaan waxaaga. Waxa qurxiya samada kaliya ma ahan cirka buluugan. Hadduu cirku lahayn qorrax, daruuro, xidiga iyo dayax iftiinsha, haween mugdi badan quruxdaas ma lahaadeen. Waxaad qurxisay guri u baahnaa ubax. Ubaxaas wuxuu u baahan yahay in la waraabiyo maalin kasta si uu u baxo. Ubaxaasna waa adiga. Si aad u kortid, ku waraabi naftaada. Ducada waalidka, farxad, naxariis iyo wanaag. Noloshu way qurux badan tahay, wayna waayo badan tahay. Taariikhaheedii horena waxaa laga wareystaa waayeelkeeda iyo waayo araggeeda. Bikoorad si qurux badan u xardhan, jir waayuhu ku sawiran xariijimaha duuduuban ee maqaarka iyo tin cad ayaa u ah astaan lagu garto waayeelkeeda waayo aragga ah. Nolosha ma ahan kaliya inta aad aragtay, sababtoo ah weli qofna ma arkin naftiisa. Farxaddeeda ayaa ah wehelka ugu wanaagsan iyo waddada ugu toosan. Dareenkeeda quruxda badan ayaa lagu ogaadaa in qorrax iftiin badan ka dambeysa daruuraha. Mugdi kastana wuu ka dambeeya iftiin, nolol kastana ay ka dambeysa geeri. Geerideeda ayaa ah farqiga u dhaxeeya noolaha neefta nolosha neefsada iyo manoolaha. Xasuusnow maalin maalmaha ka mid ah inaad ka mid noqon doontid manoolayaasheeda. Nolosha waa tan aan laga maarmi karin. Ha neefsan neefta dhimashada adigoon u diyaar ahayn la kulanka Eebbe.